waxaan soo jeedin lahaa waxay la tahay aniga bilaahi ahaan lixdan sano way baxday mustaqbalka kagebaan aadaynaa ani waxaan isleeyahay shaksi ahaan kulley personally waxaan samayn lahaa waxaa waye in muraajaco dib loo sameeyo loo laabto soomaali ahaan haddaan nahay inaan xaqiiqda aan mataqaana realistic inaan abaarnahaa oo inaan ogaano waan siday tahay personal inaan hadda nalayaabo in dadka aan ka hooseyno qowmiyadaha kaleeto oo dariska waa wax tangible arkaysa waddankan hadda dariska nala Ethiopia satellite buu dirsanaa Kenya speed side u socotaa annaka waxa way maanta mid salaamaya malaha marka horta in dib inta loo laabto la yidhaahdo maxaan xagee joognaa see mataqaana isku qabanaa oo kibirkan iyo mataqaanaa isla qubooyintan aan meesha hadal yar baan in dhex gelin hadda kor waxaa jirtay muddo hadda adiga 15 sano ah waxaan u shaqayn jiray cancer Southampton City Council waxaan agaasimo ka ahaa meel qaybta financing joogay laakiin waxaan maamuli jirnay grant ka timaada home office marka kulli waa garanaysaa xilli waxaa jirtay in beel uu rabay inay imaado waddanka marka projectii waxay jirtay ninkii prime minister Tony Blair program sameynaya oo ah make poverty history waxsaas marka program lacag baan haynay marka waxaan doonaynay inaan dadka usoo bandhigno charity-yaasha soo dhawaad dhinaca deganaa marka waxaan sameynaynay workshop aan marka facilitate one group oo charity-yaal ah baan facilitate garayna marka intan waa ka yaraa marka nin baan xoogaa hadalkiisii baan jeclaysan u ololeynaya Zimbabwe Afrikaan buu wata marka dad Afrikaan marka isaga nidaamkii uu projectkiisa usoo bandhigayay baan keenay marka dhowr mar baan ka qabtay sababtoo ah mas-uuliyad baa waxay ka saaran in hadalka dadkaan u qaybiyo marka xoogaa wuu ifibsaday marka breakii markaan tiiga la sameynayo u yimid marka ninku wuxuu ahaan jiray counselor magaalada laakiin markaa Bristol ka imaaday wuxuu dhahay alla wuu salaamay nice suit qole suitkaygu saa u qaatay marka wuxuu yidhi you know ma garanaysaa bile raashiyaanku waxay leeyihiin mahmaah waxay dhahdaan ha fiirin suit 3 piece qofka suitka uu wato laakiin fiiri meeshu ka yimid which means aniga Soomaalian ahay fakri gaajo baan ka imaaday waxaana doonaysaa inaan anigii aad mataqaana marka waqtoos waxaan fiira u malaymaan fiiri meel iga fiican inaan ka timi say iska dhalo ahaa laakiin ingiriis sheegay laakiin aniga Jamaica iyo dhinacdan u leeyahay meel iga fiican xigmad waxa waay marka waxaan ka waday ninkaas hadalkii macnada uu ii soo yeeshay qiimaha waxa waaye ninka Soomaaliga maanta xaqiiqiyan isaga wuxuu doonaa isla ahaa laakiin waxa xaqiiqada dadka dariskeenna inaan ka hooseeyo absolutely أنا كان أسكنه وأنا هم قبلنا فاس دينا عن صحلو عن أوجانا إن عن متقارنة من فوق عن جاري لكن ما قل لي ما كان أخطلنا نفتن وأنا قلنا يلس بس اوكي بسم الله الرحمن الرحيم كل انا وقت ما في الايام ديو بروجرام horta fiican yahay hadaladan waxa mudayn dhowr kalmadooda midnimo ana ay ku yara jirto laakiin kullu si guud weyn oo Soomaalinimo ah aynu hadda wax wadnaa laakiin dood siyaasadeed oo ama aynu kaga hadlano kala go ama aynu kaga hadlano midnimo ama meynaan gaarin taasi waxay noqonaysaa topic kale oo u baahan in aad looga hadla ama la discuss gareeyo waxaan ku darayaa hadalka weydii xaaji Soomaaliya waxa baahan tahay qof dhaqan yaqaan ama traditionka ay leeyihiin culture ay leeyihiin iyo qabiil kasta ama reer kasta ama deegaan kasta oo meel Soomaaliya ka mid ah deegaan qof aad u yaqaan nooca u dhaqmaan dadkaas qof haddaan inta garanayn habeen xalay tagay intuu meel soo fadhiistay Soomaaliya dhammaan maamulay waa adag
ويجران مقالة بدن ولا قري يمكن تصالحان سومالي أنه كلا قابك أي حسلونة الكيانين hybrid وحالي hybrid political أما politicians إلا سوى فتشي دقن كي يو سياسة لبدي يدور يو دجاج si loo maamuli lahaa no qabiil kama hadlayaan qabiil lagu maamulo laakiin deegaan ahaan si loo maamuli lahaa waayo dad kastaaba dhaqan gaar ah bay leeyihiin marka dhaqamadoodii dadka haddii aan la isku geynin oo aan la habaynin waxyaalo badan baa laga yaabaa inay ay difficult ay noqdaan waa fikrahaan deesaan anigu aan qaban moogta marka runtii Soomaaliya dib u dhacday waa dhab laakiin dee in la isweydiiyo wanaagsan maxaa dib ودقالدي سوكي وفكر حمو وأقوان درو وقاب كانوا فكرنو كدول قاب أي بالشوي كقارو فكرات حتى لا يقول حاجة أما هيدان شارتي كأنا أما مقالة سومالي لقليو لقيا وين السويديو اللي رمحا سوي بدون الشرعية وودا مركب بالبركة وحق سبا إن international aid كو أي مشهور كدكتان يو أوكا سمينيا درجوي أما هنقطه humanitarian aid أما development سنقطه أما capacity building أو مقدمة قبل هذا قارب السؤال لو كان capacity building بيوضع رأي حفيز كستين إن اللغة تحت كريه training كريه filing كا accountant تسكي finance كي وحيودا تسيجا وأرنس كعادية لكن يمكن تراه هو يعني العقد كريه لقلني أما السياسة هنو قلني تصالحان حنركي هنا هاي 50 billion not million billion in Somalia لقليه أنتوا يصدقوا كيسنا وتلبس أنت موقعتها مكلوجي محاسن اللي هو قليه أي سؤال شو والسياسة السياسة ده اللي هو قليه معناه هذا محنا قرية هل افتدي السويدية لا ومهم كل ما تشجعنا كوسين ديرادو لكن هذه ده سوى ضنيه هذه خرابة